شوية كم الله هيستا ساسو تاي باود نادي كل واحد لبوس باكد كل يحلي كبحسنا dadka meesha naga soo diray caadi big bro ku ka Nairobi naga soo kaxayo caadi noo gateen dadkaas loo weydiiyo meesha waxa ku joognaa xitaa gabdho 20 kun ayaga dhowr iyo 10 qolka naga soo jeedo ku jira maryamaanka kamid oo ayada waa xarusatay waniyo dadkaan niyo ma aqaan wallahi waxa soo kulanti waxaan u wanaagsan dabada meel walba oo dunida ka joogtaan waanigo Zahaboy halka naga daawaneysana waa maqal YouTube kusoo muuqaalkana maanta haddaba daawada inta muuqaalka u gudaglan hadii ay marka horeysa channelka soo baqato ha ilaamin subscribe inaad saartid sidoo kale video si la gare sini share sifa dad badan u gaaro kuna soo bir sidoo kale channelka ee subscribe saar si aad ugu mid noqotid asxaabta markan mar walba meeshan ugu xiran oo la socoto waxaalaha muhiimka aan ku soo dhigano meeshan bartan aan ku soo dhigano haddaba daawada channelkan haydo inaad subscribe saartid waxaan ku leenahay meeshan haddaba wiil oo ku xiran xabsi kamid ah xabsiga Mexico ayaa wuxuu soo duubay cod uu markaasi uu ku soo duubay kuna soo fasaxay baraha bulshada haddaba wiilkani ayaa wuxuu sheegayaa xabsi kamid ah qayb kamid ah Mexico inuu ku xiran yahay halkaasina ay isku jiraan qof caan ah ay tahay magaceeduna yahay baraha bulshada caamka lana kasay oo fanaanad tahay magaceeduna yahay Milyan Manka haddaba dadkani arintana markay maqleen ay argagaxan inay yaabeen wiilkani ayaa wuxuu leeyahay Milyan Manka ayaa ayada xaaladeeda waxay ku jirtaa xaalad xun markii ay xabsiga angalnay ayaa wuxuu ku leeyahay xabsiga dhexdiisa ay ku xanuunsantay haddaba halka wuxuu sheegay wiilkani arintani inay ka dambeeyeen Dirisla Cabdi iyo sidoo kale Big Bro ee halka dadka ay ku qaban qaabiyeen taariib inuu ka fudud yahay Mexico kadib wadankaasi America lagu galay haddaba Milyan Manka ayaa waxay taariibta ayadana ay ka qayb gashay dadkaasi ay ka wardoontay taariibka waxaan ognahay waxa soo baxay wado fududaatay oo la sheegay America in lagu tagayo halkaasi taariib loo galay Mexico kadib xuduudda Mexico marka la tagana kadib halkaas lagu soo gudbayo oo America lagu soo gudbayo haddaba dad qaar Soomaali iyo sidoo kale fanaanadina Milyan Manka ayaa cadi ugu dambeeyay waxay noqotay mid ka wardoonto taariibkaas haddaba Milyan Manka ayaa sidoo kale dad kale ay la socdaan markay meesha tageen ayaa xaaladii way isbedeshay oo xabsiga ayaa la dhaxdhigay haddaba arintani ayaa waxa la leeyahay way isbedeshay maadaama madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo halkaasi uu booqday wadanka xuduudda Mexico iyo America u dhaxeeyo uu booqday haddaba madaxweynaha markuu booqday meeshaasi ayaa wuxuu u waday dad oo taariibiyaal inay meeshan soo galayaan balse wuu mamnuucay wuxuu ku yiri hadda ka bidlaato wax soo gali doona ma jirto meeshani dadka taariibiyaasha oo muhaajiriinta oo wadankani Mexico inay imaadaan haddana halkaas isku dayeen America inay soo galaan haddaba madaxweynaha ayaa arintaasi joojiyay oo wuxuu ku sameeyay mid dib u habeen ku sameeyay haddaba arintan markuu madaxweynaha u sameeyay ayaa fanaanada Milyan Manka iyo dadka isla socdaan ayaa waxay ku soo hagaagtay markaas madaxweynaha uu arintan ku dhawaaqay ayaa ku soo hagaagtay balse Mexico markay cagta u saareen nasiib wanaag ayaa barta xabsiga la dhaxdhigay oo xabsiga ayaa cambulo ku cunaan oo arin laga naxo oo arin laga murugoodo runaantii wiilkan markuu codka soo duubay dadka baraha bulshada dhamaan Soomaalida way isla yaabeen way isla argagaxeen way aamin waayeen goormay fanaanadina Milyan Manka ay baxday oo maxaana ku qasbay inay taariibto haddaba waxaan ognahay Soomaalidana mar walba inay taariibaan oo taariibkii dheerkii ay iska dayeen haddaba arintani ay waxay leeyihiin wadadani ayaa fudud ayaa dadka laga dhadhiciyay waxa u taariibaysin Mexico kadibna waa ka sii safraysin oo xaggiisa wadankaasi Mareykanka haddaba arintani ayaa isbedeshay fanaanadina bartaas ayaa loo xiray iyo dad kale Soomaali wiilkani ayaa asagoo soo duubay cod uu ku wargelinaya dadka Soomaaliyeed haddaba eedeen wiilkan ka timid ayaa wuxuu eeda saaraya arintani Big Bro iyo Dirisla Cabdi inay ka dambeeyeen oo halkaas ku sugan ayaga haatanba magaalada dalkani Kenya khaasatan caasimadiisa Nairobi haddaba wiilkani ayaa wuxuu leeyahay Dirisla Cabdi iyo ninka kale lagu magacaabo Big Bro ayaa arintana qaban qaabinayeen halka ay sheegayeen inay qaateen $15,000 lacag gaarayso ay qaateen
haddaba wiilka ayaa wuxuu leeyahay Big Bro iyo sidoo kale ayaa waxay dadka ka dhadhacsiiyeen arrintani tahriibka inuu yahay mid fudud. Mexico ayaa tagaysa kadibna wadankaasi Mareykanka ama America ayaa si toos u galaysa. marka daawada haddaba sidoo video dad badan u gaaro si sheegay sifad dad badan ugu arkaan dadkani wax looga qabto oo saraakiil iyo ammaanka laamaha kulli wax uga qabtaan video si sheegay. sidoo kale deeta markii horeysay aad channelkan soo booqato hayloona subscribe sartid video na gare si sheegay barnaamijka xidin tabin anigoo Zahaboy inta ku kulmi doona muuqaalka xiga waa idinka tahay sidaas iyo nabadgelyo mahadsanid.